xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay faahfaahin la ka bixisay kor u kac baaxad leh oo ku yimid dhanka wax soo saarka dalagga beeraha ee guud ahaan deegaanada Somaliland sida uu go'dhoweyd warfideenka u sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Saad. marka la isbarbar dhigo shantii sano ugu dambeeyay Somaliland wax soo saarkeega iyo hadda wax soo saarku wuxuu kor u kacay boqolkiiba 7.6 buu kor u kacay marka loo eego shantii sano ugu dambeeyay. labadii sano ugu dambeeyay marka loo eegana boqolkiiba 300 ayuu kor u kacay sayidada fow iyo wasaaraddu soo wada saareen shalay. inta haddana iyadna waxaa jirta caqabado badan oo runtii dadka beeraleyda in badan dhibaatooyin badan laga soo gaaray. waxay ogtihiin in dalkeena in markii hore uu siirku inta badan open ahaa oo siir badan soo geli jiray. caqabadihii aynu ka dhaxalnay siirarkii badnaa ee waddanka soo gelayay ayaa waxay nagu keeneen in galleyda iyo haruurkaba ay waxba cayayaan badan ku dhasho. sidaa darteed caqabado badan baa jira. taas aanu xalino waxaanu joojinay oo aanu horeyna og sheegnay mar walbana ku celinayna inaanu joojinay wixii siir dibadda inooga imanayay oo aanu anagu samaynay qaybta sooma siirka soo siirka anagu dalka siir original oo waxay ay dalkani lahaa in dib la soo saaro dibna aanu anagu siirka qaybino. marka loo eego 2019 shaniyo gobolada bariga iyo galbeedka Somaliland dadka deegaamada ee beeraleydii ilaa imika jiilaalku hadduu inagu daba dheeraado mooyaane muddada hadda aynu ku jirno ilaa inta laga gaarayo googa dambe waxay haystaan deegaamadu raashino ku filan loo biqi maayo runtii. waana dadaal hor leh oo runtii ay shacabka Somaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarku sameeyeen. qaybta weyn ay ka qayb qaadatay wasaaradda horumarinta beeruhu annagoo dadka u sameynay tababaro wacyigelin qalabkii wax lagu beeri lahaa iyo dhiirigelin badan siinay tababar badan oo qabanay si ay dalka wax ula soo baxaan. waxaad ogtihiin runtii adduunku waxa imika hadda adduunka oo dhan ku dadaalaya waddan kasta oo ka mid ah adduunyada inuu iskaga filnaado dhinaca wax soo saarka. haddii waddanku waxa isagu soo saarayo cuno oo isagu la soo baxo waxa yaraanaysa tahriibta shaqo la'aanta xanuunada badan ee dadka ku dhacaya iyo yaranaya. sidaa darteed waxaan ku boorinayaa ku dardaarayaa shacab weynaha reer Somaliland ee dhinaca ku hawlan dhinaca wax soo saarka inay laabaan 2020 kan wax soo saarka. anagu runtii uga mahad celinaynaa qiimaynta imika hadda soo baxday oo runtii aan oran karno muxuu ahaayay dadaalkii ugu wanaagsanaa waxaanu sameynay sanadkan 2019. waxaa kaloo iyaguna rabnaa inaan sii kordhino 2020 kana halka maanta aynu taagannahay aan hore uga sii dhaqaano. dalagyada inta badan imika hadda soo baxay 70% baa haruurku soo baxay 20% waxa soo baxay galleyda 10% waxa weeye qamadiga sisinta tamaada geed gaabta weeye. marka saas baa dalagii sanadkan beeraleyda Somaliland ku hawlan soo baxay. waxaa inta iyaduna garab socda wax soo saarka ay wasaaraddu wado oo runtii iyaduna saddexda gobolka beer oo burca ka tirsan iyo ood weyne oo xaaxiya iyo gobolka Gabiley oo wajaala oo saddexda meeloodna ay wasaaraddu gacanta ku hayso. saddexda meelood raashin ka soo go'ayna dhawaan baan waxaan ku wareejin doonaa cidda ku shaqale hay'adda koortiga afooyinka iyo kaydka raashinka Faysal Sheekh baan ku wareejin doonaa oo imkaan isku soo raraynaa dabeedna maalin baan ku wareejin doonaa dawladda wixii anagu wasaaradda beer ahaan aanu soo saaray. laakiin waxaan u mahad celinayaa shacabka reer Somaliland oo runtii iyaguna dadaal badan sameeyay. wasiirka oo sii wata hadalkiisa ayaa sidoo kale walaac xooggan ka muujiyay saamaynta ay ku haya deegaanada Somaliland iyo dalagyada ay shacbigu beerteen isagoo fariin u diray hay'adaha caalamiga ee sidoo kale kuwa maxalliga ka howlgala gudaha dalka
in iskaashi lagaga hortago ayaxaasi deegaanadii uu maray ee ku teedsan dhanka xeebaha oo xilligan cabsi laga qabo inuu ka dilaaco koronkor saamayn ku yeelan karta dhanka wax soo saarka dalagga beeraha ee dalka. caqabadaha iminka hadda ugu weyn ee nagu soo food leh hadda iminka anagoo aan aad ugu welwelin wax ka mid a waxaad ogtihiin 2019 bishii 6 inuu ina soo maray ayax ina soo maray waddanka dib ayaxaasi markuu uuna dhaafay laakiin wuxuu ka tegay ugxan buu ka tegaa ugxantii uu ka tegay roobka bisha saddexaad 25 roob ku da'aan oo shacabku filayaan inuu roobku bilaabmo roobku markuu tixo ayuu ugxantaasi dilaacaysa koronkor baa la yidhaahdaa dabeedna iminka waxaa laga soo sheegay saaka xeebaha jamhuuriyadda somalilan sayla runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha caalamiga ee wada shaqaynta leenahay inay soo food leedahay uu teexa roobkaa sugayo koronkortaas inay dilaacdo taasina haddii ay nagu dilaacdo ay dhibaatooyin badan ay keeni doonto dhinaca muxuu ahaayey calafka xoolaha iyo dhinacii dadka beeraleyda ee wax soo saarkiiba oo iyaguna xilligaasi roobka ugu horeeya la beero badhaysada muxuu ahaayey shinida loo qana geleyda oo runtii iyaduna waqtiga roobka ugu horeeya lagu beero oo runtii aan ka welwal qabnay haddii nagu dhalato inay dhibaatooyin badan nagu keenayso waxaan markaa u diyaar garoobaynaa baaqna u diraynaa hay-adaha caalamiga arrintaa inay hoos u eegaan oo inala ogaadaan waxaa saaka la soo sheegay deegaamada ay ka mid yihiin ceelsheekh koonfurta muxuu ahaye lughaya aashacado bariga iyo galbeedka gobolka saaxil oodweyne banka sarareed galbeedka boorama iyo qaybta hargeysaba inuu meeluhu ayaxu maray aynu ka cabsi qabno inay koronkortii soo kacdo markuu roobku bilaabmo oo iminkaba laga soo sheegay xeebaha somaliland taasoo runtii masaa'ib ku soo socota muxuu ahaye shacabka ay tahay aan rabno sidii cidda muxuu ahaye gacan saarta aan la leenahay hay'adaha caalamiga iyo cid kastoo ku shaqa leh inay u dhaganuglaadaan baaqayaga oo hawshaasi aan u digtoonaada shacabka deegaanada meelaha deegaanada waxaan ku baaqayaa inay wasaaradda horumarinta beeraha cidda ku shaqa leh mar walba ay kala soo xidhiiraan wixii ay arkaan si aan horitag u samaynaan si aan uga hortagno dabna dadaalkayga aanu muujino runtii oo runtii arrintaasi aad looga cabsi qabo beesha caalamkuna ay ka soo saartay baaqiyo fara badan maalmahan ku jirnay oo aad looga cabsi qabo in geeska africa oo dhan 25 sano ka hor 25 sano marka laga bilaabo markii ugu horeysay ay tahay runtii ayaxa muxuu ahaye soo maray geeska africa iminkana laga cabsi qabo meelaha uu maro dhan oo kuntii uu kaga tegay in roobka u horeeya ay ku dilaacdo dabeedna ay masaa'ib halkaasi dadka deegaanka iyo xoololeyda iyo beeraleydaba ay soo wajihi doonto sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa uun hay-adaha caalamiga inay arrintaa u dhaganuglaadaan anigoo ka wasaare beeraha waxaanu qaban doonaa shir weyn oo aanu kaga aqrinsanayno annagoo hay-adaha la wadaagnay maalintii muxuu ahay axadiiba 22 hay-adood u soo bandhignay dhibaatooyinka uu baalkaasi keeni karo haddii la yidhaahdo laakiin waanu ku celin doonaa mar labaad iyo mar saddexaadba si aan u ogaano baaxadda si aan u sheegno baaxadda baalkaasi leeyahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahayba Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga Somali Cable Hargeysa.